كوسو دوادا برنامج كان عصب الله مقع بحير عيمال مقع واحد عبد الكريم أحمد عاو هالكن waxaa igu martiya Faisal Umar Keli Faisal كوسو دوادا برنامجka aad iyo aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol waan kugu mahad celinayaa inaan ka soo qayb galo barnaamijka Raymaan ama program Raymaan waan mahadsan tahay Abdi Karim Faisal haddaan ku weydiiyo su'aasha ugu horeysa oo kuma Faisal iyadoo kooban taariikh nololkaaga wax ma noo sheegi kartaa si wanaagsan okay bismillahir rahmanir rahim Faisal waa Faisal Umar Keli wuxuu ku dhashay magaalada Hargeysa wuxuu ku barbaaray isla magaalada Hargeysa wuxuu ku bartay dugsigiisa hoose iyo dugsigiisa sare Hargeysa waxaan jaamacadeedii ka baxay dalka Ethiopia jaamacadii la oran jiray NGUC ama New Generation University anoo ka baxay kulliyadda Human Resource Management ama kulliyadda loo yaqaano HR وكا personal detail كي صح waxaan u maleynayaa Faisal in yani meelo badan aad ka soo shaqeysay ama aad yani xirfad badan u leedahay ma garanaysaa waxyaabaha aad u soo baratay halkee ama meelaha baad u badnaa meelaha ka soo shaqeysay noloshaada okay aad baad u mahadsantahay Abdi Karim kulli shaqadu waa shaqooyinku waa badan yihiin shaqada hadii Soomaaliyeed malaha waxaan naqaanaa lacagta lagu qaato kula laakiin shaqooyin fara badan ay jireen haddii aan ku soo koobo ama aan soo qaato meelihii aan ka soo shaqeeyay ama sidii experience life-keygii waxaa ka mid ahayd markii koowaad aan isku dayo inaan shaqo bilaabo waxay ahayd taariikhdu markay ahayd 2006 waxaan gudoomiye ka soo noqday urur la oran jiray Cisco Drama Group oo markaa hidii dhaqanka ciyaari jiray waqti xaadirkii aan ku sugnaa magaaladaasi ururkaas waxay ahayd urur aad weyn oo markaa waqti xaadirkaa jiray ururkaas aan la soo shaqeeyay markii koowaad warihiisa dhaxaan kamid ahaa markii dambana gudoomiye 2007 markii ay ahayd waxaan 2009 markii ay ahayd waxaan ku soo biiray ururkii la oran jiray Unuga Wadaniyada Somaliland Unuga Wadaniyada oo aan kamid ahaa xubintiisa waaweyn ama xubnaha golaha dhexe isla markaana aan ahaa gudoomiye ku xigeen haddii aan ka soo gudbo Unuga Wadaniyada waxaan haddana aan dib ugu noqday iskuul la oran jiray Masno oo iskuul ahaa non-formal education isla markaana aan operational manager ka ahaa 2010 bilihii ugu dambeeyay waxaan ka soo baxay dalka Soomaaliland magaalada Hargeysa waxaan soo dhaqaaqay dalka Ethiopia waxaan nimi bilowgii 2011 waqtigii aan jaamacadda aan ka bilaabay waxaan aasaasnay group dhalinyaro oo isugu jira aqoon-yahano groupkaas waxay ahaayeen group la magac baxay Royal Readers Club Royal Readers Club kaas waxaan la doortay isla markaas 2011 bishii afraad gudoomiye waxaan muddada xilka hayay muddo 6 bilood ah sidii dastuurka naadigaas Royal Readers Club ku qeexnayd isla markaana waan ka gudbay waxaan markaas uga sii gudbay in aan u shaqeeyo meel school weyn oo Golden Future la oran jiray Golden Future wuxuu ku yaalaa magaalada madaxda caasimadda Midowga Afrika ee dalka Addis Ababa anoo ka noqday head of wellness ama meesha loo yaqaano madaxa wacyigelinta waxaan la shaqeynayay muddo kooban isla markaana waxaan uga sii gudbay meeshii la oran jiray academic la oran jiray East African Academic anoo second chairman ka noqday ama second manager ka noqday waxaan la shaqeynayay muddo 6 bilood ah East African Academy isla markaana group kale ayaa oo aan ka mid ahay waxay aasaaseen iskuulkii ama akademiyadii la oran jiray Horn of African Institute oo hadda kamid ah iskuulka ugu weyn dalka Ethiopia ee qaybta Soomaalida isla markaana ay Soomaalida wax ka barato iskuulkaas asaguna aan ku jiray groupkii BOD la oran jiray ama groupkii aasaasayasha ahaa iskuulka waxaan ka mid noqday markii ugu horreysay waxaan ka noqday macallin dhiga luqadda Ingiriisiga isla markii dambana waxaan noqday operational waxaan noqday head of training markii dambana waxaan noqday M&A monitoring and evaluation waxaan muddadeedii ugu badnayd waxaan la shaqeynay Horn of African Institute inta ka bacdi waxa jiray aniga iyo Mustafa Abdullahi Xasan Riyaale project aan qaadanay oo program school academiyad oo Hargeysa laga furayay ayaa isagana contract-giisa aan qaadanay oo Hargeysa Academic and Training Center la oran jiray waa 2013 bilowgiisii iskuulkaas oo aan ka noqday marketing manager ama aan qaabilsanaa qaybta marketingka 2013 bilihii isna ugu dambeeyay waxaa jiray group la oran jiray African Development and Entrepreneurship Council oo ahayd meel advertisement u sameysa
ama dhiirigelisa dhammaan dadka ku sugan continentka ama geeska Africa isla markaana caawin jiray oo taageeri jiray cid kasta isku dayaysay inay business ay xogayn soo noqday ama general secretary aan noqday markii ugu dambeysayna waxaan ka shaqeynayay program la yiraahdo Daryeel Relief oo hadda ka jira dalka Sweden laakiin si fiican aanan wax wada shaqeynaan u galin iyo hadda oo programka aan ka socdo ama hay'adda maanta aan ka socdo loo yaqaan SFS oo ururkaas oo Somaliska Foreign Scambori oo ah urur ay ku midoobeen dhammaan Soomaalida ku nool gobolka Scambori aad baad mahadsantahay waana dhamaystiran aad baad mahadsantahay Faisal su'aasha haddii aan u galo muxuu yahay ujeedada aad u iftiiminayso bulshada si maxaa soo lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim labaad ujeedada aan u iftiiminayo aad baad mahadsantahay waxaan maanta nasiib u helay inaan u iftiimiyo ama bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba khaas ahaan bulshada ku nool dalka Sweden aan u sheego urur inuu maanta uu jiro urur u dooda xuquuqdooda iyo xaqa waxay u leeyihiin ururka waxaa loo yaqaanaa SFS ama waxaa loo soo gabeeyay Somaliska Foreign Scambori wuxuu ku yaalaa gobolka Scambori ee magaalada Falköping wuxuu ururkan yahay urur ka shaqeeya danta guud ee Soomaaliyeed waxaan u socdaa inaan maanta spread gareeyo ama aan fidiyo sidii lagu gaarsiin lahaa dhammaan gobolada ay degan yihiin Soomaalida ku sugan dalka Sweden iyo sidii ay wada shaqeyn u yeelan lahaayeen ururkaasi muxuu qabtaa ururkaas waa urur weyn waxa uu ka shaqeeyaa hadda waxa uu ka dhisan yahay magaalada Falköping oo dhacda gobolka Scambori waa urur samafal ah isla markaana caawiya dhammaan Soomaalidu meel kasta ay ku nool yihiin ururka xaqa lagu aasaasay siyaasad guddoomiyaha waxaa lagu aasaasay magaaladaas aan ku sheegayo Falköping ururku waa ururkii wax weyn ka geystay bulshada Soomaaliyeed haddii aan example ahaan kugu soo qaato markii ay ahayd taariikhdu 2009 ilaa 2010 markii la xiray khaladka dalka Sweden ama Sverige markii la xiray waa ururkii ka qayb qaatay inay u doodaan inay horgeeyaan baarlamaanka in ay si wanaagsan uga hadlaan bulshada Soomaaliyeed iyadoo maalmaha ka mid ah waqtigii fintarka ama waqtigii barafka aadka xaaladdu u qaboobay ee dadkuna aan awoodin inay dibadda soo istaagaan in bandhig sameeyeen ama banaanbax iyagoo u doodaya sidii Soomaalida loo caawin lahaa ururkaas wuxuu ka asaasan yahay magaaladaas runtii waxaa guddoomiye ka ah Cali Aamin waxaana asaasay group aqoon-yahano ah oo Allah ka saaysiiyaalka ku sugan isla markaana dangu qaatay waxaana ay u shaqeeyaan ay markastana u heelayeen sidii ay u caawin lahaayeen bulshada Soomaaliyeed waxaana ka dhisan yihiin magaaladaas Faisal haddii aan u gudbo su'aasha xigta ururkan aad ku dhawaaqdeen oo aad xubinta ka tahay adigu yaa gacan idinka geystay yaa idinka caawiya yaa hadday noqoto xag dhaqaale hadday noqoto xag maxaan ku rahdaay dawladeedba ma yahay ururkan urur la hor dhigay baarlamaanka waddankan ama aad u gudbiseenba inay ka doodaan aad baad u mahadsan tahay waa su'aal runtii saxa una baahan juhdigeeda ama jawaabteeda u baahan ururkan markii hore waataan kuu sheegay sidii hore aan kuu sheegay waa group educators ama aqoon-yahano oo maalkooda iyo moodkooda iyo mindkoodaba doonaya inay u huraan Soomaalida ama bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden intaa kadib way jirtaa gacno shisheeye oo ama qof foreigner ah oo isla markaa ka taageeraya sida gabadha weyn ee la yiraahdo Maria Fenn waa gabadh aad ula shaqeysay ururka SFS ama loo soo gaabiyo Somaliska Foreign Scambori waxa weeye waa Somaliska Foreign Scambori SFS baa loo soo gaabiya urur Soomaaliyeed waa urur Soomaaliyeed oo ka dhisan gobolka Falköping ama gobolka Scambori magaaladiisa Falköping sax ayuu ka dhisan yahay gabadhaas way la shaqeysaa waana hordhigeen baarlamaanka way hordhigeen waana ta u fudaydisay in la furo ama aan oran karo laf dhabarta ugu weyn ama guulaha uu gaaray ururkaas SFS uu gaaray waxaa ka mid ah in dadka loo ogolaado carruurtoodii xaasaskoodii dumarka loo ogolaado raggoodii ka joogay Afrika in qof kastaaba xaqiisii xuquuqdiisii uu ka helo dawladda uu martida yahay ee dalka Soomaaliya laakiin
faysal Soomaalidu halkan waddanka degan way ka duwan yihiin ajnabiga kale maxaa yeelay iyaga waxay Soomaalidu ku helaan sharciga muddo 8 sano sharciga waddankan marka maxay tahay sababta Soomaalida looga dhigay inay 8 sano ku helaan sharciga halka kuwa kale looga dhigay sanado yar ama 5 sano ay maraan sababtaas waa sababta kaliftay in ururkan uu kaco waa sababta kaliftay in ay dadkan u fikiraan bulshadooda waa sababta kaliftay in ay dadkan ku taageeraan maan iyo moodba bulshada Ilaahay ka dhaliyay subhanahu wa ta'ala waxay kamid tahay one of the objectiveska ama ujeedooyinka koobaad ee loo aasaasay Somaliska Foreign Scambori waxay kamid tahay caqabadaha inay soo koobaan caqabadii hadda ku xusay ee ahayd inay ka hortagaan sidii bulshooyinka aanay lamaano aanay kala dhantaalmin isla markaana bulsho qof kasta oo xaqiisa u helo sida aabaha carruurtiisa ka maqan tahay hooyada carruurtiisa ka maqan tahay ninka gabadhiisa ka maqan tahay iyo gabadha ninkeedii ka maqan yahayba sidii ay u helaan xaqoodii waa sababta koobaad ay markii hore ururkan uu kacay bay ahayd sababta labaad ee alternative-ka labaad soo gashayna waa sababta su'aasha hadda aad weydiisay maxay way ka duwan yihiin Soomaalidu oo waxay ku qaataan 8 sano waa sababta ay ururku uga doodayaan waana sababta ay baarlamaanka u horgeeyeen Maria Fong gabadhaan ku sheegaya waxay hordhigtay baarlamaanka waxa markiiba aqbalay laba xisbi Millennium Party xisbiga la First Party labada xisbiba waxay ahaayeen labada xisbi ee ogolaaday in Soomaalida 5 sano lagu siiyo waxaa mudan in la xuso bulshooyinka kale ama dalka kale ee magangaliyada ay Sweden u jooga in ay yihiin dad kala duwan dadkaas waxay ku qaataan muddo 3 sano ilaa 5 sano inta u dhaxaysa waxay ku qaataan sharciga weyn ee marka citizenka ay ku noqonayaan laakiin Soomaalidu way ka duwan tahay sababaha ay uga duwan tahayna waxa kamid ah maadaama aan la garanayn unknown place meeshii ay ka yimaadaan exactly oo muddo 20 years oo Soomaaliya fighting-ku uu ka socdo waxa sababay in lagu kalsoonaan waayay waxa sababay in unknown lagu qorayo kala qofkii marka uu soo galo laakiin marka wadooyinka kale oo kala soo Syria kala hadda soo qaato waddankooda shalay buu buray shahaadooyinkiiba wataan dokumentigiiba wataan passportkiisii Syrianka haba wataan soo cadeyn bay u tahay in uu si degdeg ah u helaa sababta marka Soomaalida ay 8 sano ay ugu qaadatay waa sababtan dagaaladan si daba dheeraaday ee ka socda dalka Soomaaliya inta ka gadaal SFS ama Somalis Foreign Scambori oo ururkan weyn ah waa sababta uu gunta dhiishiisa ka dhigay in uu dhaqaaqo in uu taageero in uu dadkiisa caawiyo meel kasta ay ka joogaan dalka Sweden waana mid aan leeyahay waxay yihiin mid in lagu xuso mudan waana mid ay u taagan yihiin inay ku taageeraan isla markaana ay wax ugu qabtaan bulshadooda waana sababta ay ajendaha u dhigeen baarlamaanka oo ilaa hadda uu baarlamaanka hor yaalo aad baad mahadsantahay Faisal haddaan ka weydiiyo su'aal kale ururkan ma rag iyo dumar buu ka kooban yahay mise labadaba wuu ka kooban yahay ajendaha loo socdaa waa common good oo waa sidii Soomaali dan loogu heli lahaa waa sidii wax loogu qaban lahaa waa sidii loo caawin lahaa bulshada waxaan u maleynayaa examples ba ilaha together we win and divided we fail together haddii aan wada jir noqono we win waa guuleysan doonaa and divided haddii laakiin aan kala googosnaano we fail waa fail garoobi karnaa taas waxaan ka soo qaadanayaa jaaliyadaha jira jaaliyad kasta waxay leedahay baar ama madax sare u dooday bay leedahay nasiib daro waxay aanan ka jirtay inaan Soomaalidu aanay lahayn markii hore laakiin maanta aan leeyahay meel kasta joogtaan cid kasta clipskayga maqlaysa oo Sweden gudaheeda ku sugan SFS Somaliska Foreign Scambori waa groupka qura ee u taagan sidii ay u develop gareyn lahaayeen dadkooda isku may raacin qabiil isku may raacin midab isku may raacin laakiin dadnimo walaalnimo iyo Soomaalinimo isku raaceen gaariya wuxuu lahaa gabaygiisii waxa ku jirtay abku doonaha ahaadee waxa eheli ah ninan abku doonaha sheegtay wuxuu baa ehelkii ah ninan la faqaano namidaysa ujeedo si wixii la arkay marka waxa maanta eheli ah nin namidaysa ujeedo si wixii la arkay marka na runtii dadan oran karo
waxbaan si wada arkaynaa sidii loo develop-garayn lahaa community-ga aan kasoo jeedno. idinkoo ururkan dadaalkan aad ku jirtaan ma kula tahay in yani aad ku guuleysan karaysaan mase u malaynaysa in yani uu noqon karo urur midho dhalo ama de yani wax ka bedela soomaalida waddankan degan sharciga qaabka lagu siiyo ama qaabka loo bixiyo صح وسؤال صح أدونك شيء كستو لا بلا بلا ولا يهاي بدمان ولا يهاي واحد كستو أدونك لا بلا بينا ميلو ما لقى صوب بلا بي أحان حسوستا سليف تريد كي أختي بدو كلا صوع عبارة تايدك لو ولا السعودية أيا واحد عاي واحد شرين أمريكان بلاك ومارتن لوثر كيل لورنجري ayaa wuxuu dhahaa Martin waxaan xasuustaa book uu qoray lahaa Have a Dream ayaa wuxuu ku xusayaa markii ninkaasi uu soo bilaabay halgankiisii uu kaga hadlayay sidii bulshada planka uu u hirgelin lahaa ama isla markaana dad kale ula sinaan lahaayeen marka wuxuu lahaa I have a dream when upon a time the president of United States in America to be a black person waxay ahayd buu lahaa yani mid riyooyinkayga ku jirta maalimaha ka mid ah inuu madaxweynaha Mareykanku noqon doono madaxweyne madow maantana waad aragtaa I have a dream buu lahaa waxaan ku riyooday maalimaha ka mid ah slaverka iyo ka adoonka iskale ee adoonka aniga iskale will be able to sit down together with same table of brotherhood iyagoo wada fadhiya miisas ku mid ah iyagoo brotherhood meel wada baranaya waana dhacday marka waxaan uga dan leeyahay exampleskaas yani shaygan waa bilownay waxaanan hubaa yani qaybka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sidii wax ku dambeynaa ilaahay baa og laakiin boqolkiiba boqol waxaan u rajo qabno inay hirgeli doonaan mahmaha waxay tiraahdaa wax lagu kacay rabbina aqbalay waa rumooba waxa la yidhi rah baa israacay rah waa kan rahu biyaha ku nool rahii markii ay israaceen waxay fanteen baa la yidhi buurtii markii ay fanteen ay dhexda kusii jiraan ayaa rah ka mid ah u qeyliyay waa buurti waa dheer taayey waa biyaha xagga sare yaa la gaari mayno rahii oo dhan dhagac buu suugay iyagoo ka baqanaya meeshaas inay sii dheer tahay rahii hal raabaa kasoo dhex baxay uu socday wuxuu gaadhay meeshii uu rabay uu gaadhay muddo ku noolaa meeshii markii uu ku noolaa muddo uu soo laabtay markii uu soo laabtay oo rahi ku soo laabtay meeshii ayaa waxa dhacday in la weydiiyo bal nooga waran wixii meeshaad ku soo aragtay waxa kale oo nooga warantaa sidii aad ku gaadhay waxa kale oo nooga warantaa duruufihii ka hor yimi iyo sidii ay ahayd deetuu jawaab waayey markuu jawaab waayay rahi hooyadii baa la weydiiyey inankaaga bal nooga waransiiyo maxaa ku dhacay baa la yidhi deetana waxay tidhi inankeyga waa uu dhagalayahay rah dhagalaada ayuu ahaa mahmaha markaa ka daba timo waxaa la yidhi dhawaaqii ku dhiirigelin rabaa dhagaha ka furaysa dhawaaqii dhiirigelin rabin aan ku dhiirigelinaya dhagaha ka xidho dhawaaqan ku dhiirigelin dhagaha ka xidho dhawaaqan ku dhiirigelin macnaha rahaas raha uu ku dhex jiray laakiin haddii uu maqli lahaa isaga laftarkiisa buurtu waa dheer tahay uu soo laaban lahaa laakiin inuu hore u socdo maxaa keenay muu maqlaynin ajandaha wuxuu aaminun haba dheeraatay inuu gaari doono maalmaha kamid ah waanu ka guulaystay dhammaan kuwii dhagaha qabay marka waxaan leeyahay soomaalida meel kastay ku sugan tahay dhagaha ka furaysa dhawaaqan ku dhiirigelin waana dhagaha ka furaysanaa dhawaaq kastoo negative inagu ah waana dhagaha u furanaa dhawaaq kastoo positive inagu ah Faisal ururkan aad xubinta firfircoon ka noqotay waxaan ku weydiin lahaa qaabkeebaad adigu ururkan uga mid noqotay maadaama waddankan muddo kooban aad joogtay okay waxaan odhan lahaa qof walba wax uu jecel yahay anigu Faisal ahaan waxaan jecelahay social service ama social work waxa loo yaqaano waqti xaadirkii aan dalka dibadiisa baan ku sugnaa waxaan aad u jeclaa sidii aan uga mid noqon lahaa nula shaqeyn lahaa non-profit organizationska international organizationska international NGOska NGOska laftarkooda qofka bini'aadamkiina waxa la yiraahdaa marka uu doonayo inuu bulsho horumariyo first way isagu uu yahay qof isagu is horumarin kara wadamadan adduunka arkayna waa saddex waa development wadamo developed oo horumaray
wadamo developing ah oo hadda soo kacaya iyo wadamo under developed ama under development ah adduunka dadkuna saddexdaas u qaybsan yihiin waa dad tagay dad hadda horumaraya iyo dad iyagu horumarkaba ka hooseeya marka saa leeyahay micnaheedu maaha inaan faanayo leeyahay waan horumaray maaha laakiin waxaan leeyahay markasta si aan naftayda u update gareeyo ama development gareeyo ayaa waxaan isku dayaa inaan kala shaqeeyo dadka social service-ka ama social work-ga placeska dadka lagu hayo common interest-ka daraha guud isla markaana lagu horumarinayo ujeedooyinka qofka bini'aadamkii uu isaguna ku horumari karo dadkiisuna ku horumari karo inaad dadkaaga horumarisana waxaa ka horeysa inuu qofku horumaro kabacdi bulshadii uu horumariyo kabacdi dalkiisii uu horumariyo markii aan anigu aan Sweden markii aan kasoo degayba isla maalintii aan imi habeennimadkeedii waxa laga soo codsamay workshop ay leeyihiin SFS ururkan hadda aan maanta aan ergada u ahay ama isla markaana aan ambassador-ka u matalayo ururkaas markii laga soo codsamay runtii waxay noqotay dad aan aad uga helay dad academic ah dad doodaya dad wanaag ku doodaya isla markaana shayga ku doodayaan mid qura aan gaar u lahayn qof personal interest meesha ka dhaxbatay kuma arkayn runtii yani qof kastaaba wuxuu waday sidii Soomaalida uu ku dhex nool yahay oo ay u damaqday dhibaatada haysata sidii u horumarin lahaa sidii wuxuu isagu helay xitaa waxaan odhan karaa dadka uga firfircoon qaarkood baa ujeedooyinka loo socdaba helay baan odhan karaa laakiin dantooday ka horumariyeen danaha hore markastana ajarka iyo wanaagga wuxuu ku jiraa adiguna aad horumariso bulshada aad ku jirto aad horumariso taasi waxay ku galiftay in workshop-ka wixii ka dambeeyay aan go'aan qaato inaan ka qayb galo shirarkooda sidii waan shirarkooda uga qayb galay markii dambena sidii baan xubin joogto ah ku noqday iminka xubnahaas baan ka mid ahay waxaana leeyahay dhammaan Soomaalida ku sugan dalka Sweden waa urur aan laga xigin waa urur dantoodii ka shaqeynaya waa urur maanta u baahan inuu helo taageero hadday noqoto gobolada iyo hadday noqoto caasimadaha weyn ay ka koobantay dalka Sweden waa urur openly oo ah waxa uu ka dhisan yahay dalka magaalada Falköping automatically waa la soo xiriiray waa su'aashan usoo socday runtii laakiin maadaama halkan ka matalayso ururka aad sheegtay magaciisa maxaad kula talin lahayd ama aad halkan u marin lahayd caawa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Sweden iyo nawaaxigooda hal mid aan kula talin lahaa mahmaadii markii hore aan kusoo sheegay ilaahay hortaas subxaana wa tacaala Soomaalida yani dad horumar ah ka dhigo nin baa maalin aanu kaftanay dadka wuxuu igu yidhi almacnaa ma u malayn doontaan inaad horumari doontaan 20 years ka soo socdo qasab yani bulsho dad nool ah oo karti leh oo aqoon-yahan ah waan way horumari karaan dadka kelmad buu raaciyay wuxuu igu yidhi the one who cannot control to the past, is it possible that you can control to the present? Kii maamuli waayay wixii tagay ma u malaynaysaa inuu maamuli doono waxa jooga ama ma u malaynaysaa inuu maamuli doono ka fikri doono waxa soo socda runtii taas waxa uu keentay maanta yani waxa jira waxyaabaha qaar aan ka doodi karin waxa maanta uu keentay baan oranayaa Soomaalida meel kasta joogaan xaaladda ay ku sugan yihiin isu dilayaan qabaa'ilka uu ka koob yahay ayaa waxay keentay in dalkii kale ama dadka ajnabiga ah ay leeyihiin yani ay u haystaan dad caqli darro ah oo dad maangaaba ay u haystaan yani qoomna ilaahay ma duleeyo kow ilaa iyagu ay isduleeyaan marka waxaan leeyahay meel kasta joogtaan Peter Pasti isku day inaad dadka ugu fiican noqotaan isku day inaad dalalka aad joogtaan aad kaga faa'iidaysataan aqoonta hadday tahay Yurub hadday tahay Aasiya hadday tahay Afrika hadday tahay meel kasta aad joogtaan inaad ka faa'iidaysataan isku daya ururada sidan ururkan hadda ujeedadiisu maanta isoo fadhiiso kala inaad taageertaan inaad isku day inaad kala burbursaan inaad isku day inaad dana gaara ka yeelataan laakiin wax kasta oo danta guud u taagan inaan taageerno ayaan kula talin lahaa bahyarta ama dhalinyarta Soomaalidana meel kasta joogaan waxaan leeyahay responsibility weyn baa idin saaran waxay soo arkinaan soo la xitaa dameerta faras la daaqday waxay ismoodaa faras waxay isku arkin meelaha joogtaan inaad idinku leedihiin ama aad tihiin laakiin u arkay inaad meel kasta aad joogtaan kana muuqan kartaan horumari kartaan aad baan ugu mahadsantahay meel kasta joogtaan Faisal ururkan cusub ee aad xubinta ka tahay waxaan filayaa inuu imika ku kooban yahay un malaha Falköping laakiin mustaqbalka waxa ay idin qorshaysan inaad ku gaarsiin doontaan ilaa yani wadamada inagu xeeran ama waddanka Sweden gudihiisa
falshabin waa meeshii laga asaasay laakiin meelo badan oo gaadhay baa jira sida faksho oo kale ama magaalooyinka ugu dhawaan falshabin ku wada dhow ee Tugori oo kale magaalooyinkaas oo kale anigoo kale oo Norrköping u joogo oo kale Stockholm oo Ismaaciil Maxamed Muuse iyo ka mid yihiin nimanka hawsha loo soo gudbinayo oo isla markaana representative ka noqonaya waa badan yihiin waana rajaynaynaa waana soo dhawaynaynaa qof kasta oo taageeraya Soomaaliya foreign scambori ama Soomaaliska foreign scambori waxaa leenahay gacmo furan soo dhawaada waa tahay daawadayaal haatan imika waxaan soo gaarnay gunaanadkii barnaamijka ra'yi maal oo inoogu marti ahaa Faisal Cumar Kali oo booqasho inooga yimi magaalada Norrköping ee waddanka Sweden. Faisal haddii aynu barnaamijka soo gabagabeeno yaad uga mahadcelinayaa caawa halkan oo kugu dhiirigeliyay programka isaga. Maasha Allah horta aad baan ugu faraxsanahay Cabdikariin Axmed aad baan ugu mahadcelinayaa oo wiil dhalinyaro ah isla markaana aqoonyahan ah waa wiilka programkan furtay programka mulkiilihiisa ah Faymaal waana shay qurux badan in bilaadanka la isu keeno isla markaana si rayada loo ururiyo Soomaalidu waxay tiraa maan rag mudacya waxaa la odhan jiray maan rageed waa mudacya afeedmiyaheed yacni mar kasta oo la isu yimaado oo wax laga tashto oo mar kasta ay wax soo baxaan واتي مهمادي كراهي بركة كام قان روحها هايستا برو تبي باك راعي واحد شيء عني يقول شراء وأنا ذيك أقول شرين يشيء عديك أقول شراء وأنا نيجي أقول شرين لكن تقدر هذه اللي يسوق هنا وحبين نقنصها شيء كستول لقى مدرسية هنا ميل بالله جارا أحلى واحد راها if our people working together they can achieve what they hope for حديدتكو أنت يسوي مادام together ولا شقيان definitely waxaa qasab ah in la gaarayo meeshii la rabay waana ku mahadsantahay programka aad igu soo casuntay ee aad ka quruxda badan waana waajibaad saarnaa waajibaadka shaqada gudanayay aan joogay magaalada Stockholm waa soo mahadcelinayaa cid kastoo igu soo dhaweysay Ismaaciil Maxamed Muuse waxaa dadka igu soo dhaweeyey Khalid Cumar oo waxaa dadka igu soo dhaweeyey dhammaantood aad baan mahadsantahay programka aad baan أصعب من مصدر فيصل عمر ومشاركة أول مرة مجرد استقرار وسويدن ضوء غير وحنا